runtii waa laba factor ama laba cawaamil oo aad isku saameynaya si fiican isku la xiriira ugu horeyn haddaan kala qeexino labadooda dakhliga iyo dalabka haddaan kala qeexino dakhliga ninba dhinac uu ka fiiriyo waa macno badan ayay leedahay haddii laakiin dhaqaale ahaan aan u qeexino dakhliga waxaa lagu qeexi karaa lacagta uu qofka uu ka helayo ama companyga laftarkiisa lacagta uu ka helayo shaqo uu qabtay at a particular time waqti cayiban shaqo uu qabtay shaqadaas ritankeeda uu sugayo lacagtaas uu helaya marka waxaa loo yaqaanaa dakhli tusaalahaan oo kale qofka shaqaalaha wuxuu sugayaa mushaar uu sugayaa taasaa waxaa la dhahaa dakhli qofkii dhulka lahay wuxuu sugayaa muxuu ahaa kilo sugaa taas ayadana waa dakhli marka waxyaabahaas uu qofka uu ka sugayo waxyaaba wax lagu soo saaro oo ugu imaanayo marka waxaa la dhahaa dakhli dalabka asigana waxaa lagu qeexaa waxyaaba macnaha awoodda iyo rabitaanka qofka uu rabo inuu shay soo iibsado waqti cayimanna uu kusoo iibsado qiimo cayimanna uu kusoo iibsado taas ayadana waxaa la dhahaa dalab marka haddii aan dhahno muxuu ahaa see isku saameynaya see iskula xiriiraan horta qofka waxaa keento inuu horta wax iibsado ama inuu wax gato ama wax dalbado waxaa keenta awood ma uu leeyahay horta dalabka waxyaabaha sababa saddex shay aan kusoo koobi karnaa qofkan awoodiisa iyo rabitaankiisa iyo muxuu ahaa iyo waqtiga uu dalbanayo dalabka waxaa saameeya waxyaabo badana saameeya dhowr factors ayaa saameeya haddii aan si kooban soo qaadano factorskaas waxaa kamid ah horta dalabka horta wuxuu ku xiran yahay qiimaha badeecada haddii qiimaha badeecada uu sareeyo waxaa imaanaya in dalabka hoos u dhaco haddii qiimaha badeecada hoos oo liitane waxaa imaanaysa in dalabka uu kaco marka waxyaabaha ugu horeeya saameynta xoogan ku leh dalabka waxaa waaye qiimaha badeecada markasta oo qiimaha badeecada badan yahay waa markasta oo badeecadaas dalabkeeda uu yaryahay tusaale ahaan oo kale badeecada waxaa ku iibsanaysay tusaale camal $5 ay ahayd waxaa ka qaadanaysay tusaalahaan oo kale 6 xabo badeecadaas ka qaadanaysay badeecada qiimaheedu waa uu kacay oo wuxuu tagay $6 oo tagay waxaa imaanaysa marka in adiga ka gaabsato intii aad isticmaali jirta xataa inaad ka yarayso sababtan waxaa waaye qiimihii kor u kacay marka waxyaabaha saameeya dalabka waxaa kamid ah qiimaha badeecada waxyaabaha kala saameeya dalabka badeecada waxaa kamid ah dakhliga oo asagana deeta aan ka hadalnay qofka inuu wax dalbado horta waxaa keenta inuu awood u leeyahay waxaa keenta inuu qofkan dakhli haysto marka haddii uu qofkan dakhli leeyahay dakhli fiican leeyahay waxaa imaanaysa in dalabkiisa oo asagana u bato haddii uu qofkan dakhli fiican lahayna waxaa imaanaysa in qofkan oo dalabkiisa hoos u dhaco waxyaabaha kala saameeyo dalabka waxaa kamid ah sidoo kale isbedelka qofkan dooqiis tusaalahaan oo kale alaabta aad jeclaa jirto oo kale ayaa waxaa imaanaysa bishaan soo socota oo kale in alaabtii ka xiisa dhacdo waxyaabo kale ku aragtay oo kale in dooqaada alaabtaas hoos u dhaco tusaalahaan oo kale waxyaabaha waxaa jecesha oo kale macmacaankii lagu sii qurxiyey marka dooqaadii marka waxay tahay marka inaad macmacaankaas iibsato marka dooqa iyo fashionka ama styleka ayadana waxay qayb ka tahay muxuu ah waxyaabaha saameeya dalabka markasta oo waxaan qaab adig si jecesha loo sii qurxiyo waxaa imaanaysa in adiga sii iibsato maadaama ay dooqaada tahay wax badan ka iibsataa maadaama dooqaada tahay tusaalahaan oo kale shaati qurxoon oo astaamo gaar leh iibsan jiro astaamihii loo sii badiyo waxaa imaanaysa in dooqaaga macnaha oo sii bato adigna shaygaas maadaama lasii qurxiyey aad sii doonato waxyaabaha marka saameeyo dalabka waxaa kaloo kamid ah seasonalka kamid ah xilliyada saameyn weyn ayay ku leeyihin muxuu ahaa dalabka waxaa arkaysaa oo kale badeecadaha iyadoo lagu leeyahay xilli kuleelaa lagu jiraa badeecadaha ma la iibsado waxaa iyadoo lagu leeyahay arkaysaa badeecadan xilli qabowa lama iibsado saameyn buuxda tusaale fiican waxaan ka qaadan karnaa suuradda qur-aanka oo kale la ilaafi quraysh waxay ahaayeen laba xilli ay samayn jireen maadaama dhulkan makal mukarama uusan lahayn beero iyo waxaas lahayn wax aysan beeran waxay samayn jireen laba xilli ay waxay dalab samayn jireen marka waxay aadi jireen marna shaam aadi jireen oo dhulkan suuriya aadi jireen marna yemen aadi jireen marka xilliyada xagaaga oo kale waxay aadi jireen yemen aadi jireen xilliga jilaalka oo jireen waxay aadi jireen kuleelaha iyo waxay aadi jireen muxuu ahaa shaam ay aadi jireen marka xilli kasta wax ma aysan doonan jirin marka xilliyadaas ayay u caynteen marka dalabka saameyn waqtiga ayaa saameyn ku leh alaabta isku qiimo ma aha alaab dalabkeedu wuxuu badan yahay xilliyada kuleelaha alaab dalabkeedu wuxuu badan yahay xilliyada qabowaha marka waqtiga asiguna saameyn fiican ayuu ku leeyahay waxyaabaha saameynta ku leh asigana dalabka waxaa kamid ah xayeysiinta oo kale xayeysiinta door weyn ayay ku leedahay muxuu ahaa in dalabka badeecada isbedelo tusaalahaan oo kale alaabtan haddii aad ku ogeyd muxuu ahaa informationka aad ka haysto oo yaraa oo tusaalahaan xog yar aad ka haysatay maadaama markii dambe waxaa la sameeyay idaacaddii laga sii daayay waa la xayeysiiyey waxyaaba aad ku ogeyn sir qarsooneed ayaa macnaha laga sii baahiyey oo marka waxaa imaanaysa marka in alaabtii xiiso kugu sii yeelato maadaama adiga waxyaaba aad ku ogeyn lagaaga sheegay marka
markastoo xayisiinta alaabtan lasii qurxiyo waxaa imaanaysa in alaabtan qiimaha dalabkeeda uu kor u kaco markasta oo waxaan laga aamusane dadka informationkooda la waayene ama xayisiintooda ay yaraatane waxaa imaanaysa in muxuu ahaa dalabka alaabta qiimahaas oo badeecada oo hoos u dhaco marka xayisiintu door weyn ayay ayadana ku leedahay dalabka tusaalahaan oo kale qofka waxaa la siinaa xog oosan alaabta ka haysan haddii xogta uu ka haystaa badeecada ay yar tahay markii la xayisiiyo waxaa imaanaysa xog badan oo ka qarsooneed tusaalahaan camal inta brotiin oo ka kooban tahay waxyaaba ay ka kooban tahay waxyaaba qofka faa'iidi karo waxyaabahaas oo dhan xayisiintu ka ogaana ayadana xiise ayay kusii yeelanaysaa waxyaabaha kala sameeyo dalabka waxaa kamid ah badeecada qofkan oo dalbanayo badeecooyinka lala xiriira jiro oo qofka tan haddii ay ku badato oo iskaga bedeli karo marka badeecadan oo kale dalabkeeda waxay ku xiran tahay badeecada kale ee qofkan u dhow tusaale camal oo kale qofka haddii uu baastadii qiimaheeda kor uu kaco kale bariiska ayuu aadaya marka waxyaaba waxaa jira marka ayadana badeecooyinka kale la xiriira oo qofka uu ku bedeli karo ayadana saameyn fiican ayay ku leedahay dalabka sida kooban haddaan u sheego horta dalab marka laga hadlaayo dalab wuxuu jiri karaa markii 3 shay la helo qofkan inuu awood horta u leeyahay dalabka inuu rabo willing in la helo iyo waqti in la helo rabitaan in la helo rabitaan iyo waqti iyo awood saddexdaas shay horta dalabka oo ku tiirsan haddii mid kamid la waayo dalabka ma jiraayo marka midaas kamid waxaa kamid awoodan waxay ku xiran tahay dakhliga qofkan oo haysto awood dakhliga loola jeedaa macnaha awoodda qofkan wax ku gadan karo maxaa xoogaas oo haysto ma aha laakiin waa lacagta oo haysto ama value qofkaas oo haysto ayaa marka waxay tahay awoodda taas ah marka awoodda haddii la helo waxaa imaanaysa qofkan tilaab fiican inuu qaado oo wax u dalban karo awoodda haddii uu haayo oo wax iibsan karo laakiin rabitaankiis ahayn ayadan dalabkuma shaqaynayo qofkan haddana factor kale waxaa jira waqtiga ah qofkan wixii wuu rabaa inuu dalbado awoodda uu leeyahay haddana waa uu rabaa laakiin waqti uma helayo waxaan uu ku dalbado marka ayadan dalabkuma jira marka awoodda ama dakhligu waa factor kamid ah oo waxyaabaha uu ku tiirsan yahay dalabka oo la-aantood is dhaqaaqi karin marka dalabku wuxuu jiri karaa markii saddexdaas qodob la helo awood markii la helo oo dakhliga ah iyo markii la helo rabitaan oo willingness ah iyo markii la helo time oo waqtiga ah marka saddexdaas cawaamil la helo waxaa imaanaysa qofkan inuu dalab sameeyo marka dakhligu si toos ay ula xiriiraa dalabka haddii uu dakhligaada oo kaco waxaa imaanayso inaad kasoo hanaqaado alaabtii qiimaha liidato ama alaabtii macnaha tayada liidato oo kale a isticmaali jirtay maadaama tabartaad halkaas eed inaad kasoo tagto oo alaabtii qiimaha sareysa aa umaato oo tayada leed aa umaato haddii uu dalabkaadi uu marka hore badnaa haddii uu dakhligaada marka hore badnaa balse uu yaraaday waxyaabo sababo jir awgeed sida coronavirus oo kale hadda dadkii muxuu ahaa dakhligooda hoos u dhaco kale marka dad badan oo waagii hore coronavirus intoos imaan wax badan iibsan jiray maadaama dakhligooda hoos u dhacay waxaa imaanaysa in qofka maadaama dakhligiisa hoos u dhacay sidii isticmaalka uu sameyn jiray inuu yareeyo sababo la xiriira muxuu ahaa dakhligiisa yaraaday waxyaabahaas ayaa marka saameeya dalabka marka awooddiisa waxay u baahan tahay dakhli inuu haysto marka dakhli hadduu qofkan uu leeyahay waxay ka saacidaysaa in awood u yeeshto inuu wax gato marka waxay iskula xiriiraan qaab si toosa ah xiriir toosa ayaa ka dhexeeyo haddii uu dalabka haddii uu dakhliga uu bato waxaa kor u kacaya dalabka ayaa kacaya haddii dakhliga uu yaraadana waxaa hoos u dhacaya muxuu ahaa dalabka hoos u dhacaya marka waxaa jiro qofka dakhligiisa markii uu bato waxyaaba badeecooyinka qofka uu kala saaraya category uu samaysanaya heerara uu kala noqonaya haddii tusaalahaan qofkan uu iibsan jiray waxyaabaha second hand kale uu iibsan jiray markii uu dakhligiisa yaraa waxaa dhacday in dakhligiisa marka dib loo soo isticmaalo kale hudheedo kale inferior good allaha haddii uu qofka markii dakhligiisa uu yaraa oo waxyaabahaas uu iibsan jiray oo dalabkiisa oo halkaas uu ku ekaay bilaha xiga ay dhacdo in qofka dakhligiisa oo kor u kaco waxaa imaanaysa qofkii in oo badeecadaas uu ka tago second handkaas ama waxyaabaha dhan oo inferior goodka oo aan qiimaha badan ku fadhin qofka inuu ka taga imaanayso oo u gudbo badeecooyinka normalka la dhaho oo dadka caadiga haystaan dadka lacagaha haysto ama dadka dakhliga fiican ay gataan tusaalahaan kale qofkii in saacado qaali uu xirto qofkii inuu gaari fiican soo gato waxyaabahaas qofka hami ayuu kusii dhalinaysaa ama dalabkiisana kor ayuu usii kacaya marka dakhligu si toos ayuu ula xiriiraa muxuu ahaa dalabka kulama oo dakhliga oo bato waxaa kor u kacaya dalabka qofka uu kacayo badeecooyinkiina intuu isticmaalayo maahina uu ka tagaa muxuu ahaa kuwii liita uu ka tagaa kuwa fiicnaayon oo talaaba marka si toos ay iskula xiriiraan leen dakhliga qofka hadduu dakhli haysto awoodiyo helo awood hadduu helo rabitaankii ku xiriirtaa qofkan markasta badeeco uu rabaa waxa uu ku noolaado u baahan yahay marka rabitaanka markasta waxyaabaha asaasiga waaye oo imaanayso marka awood hadduu helo qofka rabitaanka si fudud ayuu ku samaysan karaa waqtigana uu heli karaa
marka dakhliga asiga ayaa laf dhawr u ah laakiin si guud waa in saddex qodob la helaa marka la rabo dalab in la sameeyo awood in la helo oo dakhliga ah iyo muxuu ahaa rabitaan in la helo iyo in la helo waqti in la helo marka dakhliga marka asiga furaha u ah markii aad dakhli ay hesho rabitaankana markaas waa wax ku dhalanayo baahidaada ka imaanayo waaye waqtigana mar walba ayaa haysataa marka dakhliga asiga ayaa laf dhawr ah marka hore horta waxaa jirta horta qofkan qof macnaha ma jiro qofka saliimka ah muxuu ahaa qof wada isticmaalaya maaha boqolkiiba boqol waxa uu helay consumption isticmaal inay dhacdo oo wixii aad soo heshay dabka saaro macnaha qofkaas waxa ka fikirayo muxuu ahaa mustaqbal dambe ka fikirayo qofkan wax walba ma isticmaali karo haddii qiimi lacagtii awal uu heli jiray lacag ay ugu darsanto isticmaalkiisa wax yar kaliya ayaa ku darsamaya su'aalaan camal oo kale haddii bishii hore isticmaali jirto kale bur loor camal aad isticmaali jirto kale ama halkii shokolaad isticmaali jirtay dakhligaada hadduu batay kiishish badan ma keenaysid wax yar ayaa kugu kordhaya macnaha markasta oo dakhliga bato consumptionka wax macnaha cayiman ayuu kordhaa maahina consumptionka boqolkiiba boqol ma tagaayo safe garaynta inuu qofkan wax u reebtane waa waxyaabaha kusii hegi karo qofkan inuu macnaha oo beri oo xal waaro oo kasii gaaro maxaa noloshiisa waxyaabahana shaqada ma la isku haleyn karo sidaadoo kale waxaa imaan kara cawaamishan oo kale imaan karo coronavirus oo kale marka qofka aan keyd lahayn qofka aan keyd ku fikirayn waa qof aan macnaha horumar fiican aan ka fikirin marka ma wanaagsana qofka marka boqolkiiba boqol wixii soo gala inuu isticmaalo ama uu iska baxsho ma fiicna waxaa jiro rule oo 30-20 oo kale wixii ku soo gal boqolkiiba 20 inaa meel dhigto kale markaas ayaa macnaha waxaad gaaraysaa horumar marka isticmaalkana wax badan ku kordhayo adiga xoogaa little macnaha wax badan waxaan saas u badnayn ayaa ku kordhayo safe garayntan markasta meesha ma ka maqna oo waxyaabaha qofkan ayis dambe uu kusii joogi doono waa safe garaynta wixii kusoo galaba boqolkiiba 20 inaad safe garayso inta kale aad isticmaasho ama waxyaabaha kale aad iskaga bixiso anagoo kale su'aalaan oo kale waxyaabaha oo kale qofkan horumar kasii gaari karo waxyaaba values kala leenahay markii reer galbeedka loo fiiriyo waa ka duwana in qaraabada la xiriiriyo oo kale oo dadka la taageero oo kale qaaraamada oo kale waxyaabahaas oo kale anaga macnaha waxyaabaha aan kusii wada jirno ayaa kamid tahay oo kale marka anagoo kale haddii aad qayb isticmaasho qaybna ehelada aad siiso qaybna aad saf garayso intaas macnaha horumarkaada dhaqaalo ku imaan karaa dooqaas horta markasta dhalinyarta aad ayuu la xiriiraa dooqoodii iska badan muxuu ahaa wixii soo galan waxay rabaan in hadba sidii magaalada u taalo inay ula yaalaan oo kale ayay rabaan marka dhalinyarta waxaan leeyahay in macnaha wixii ay soo gala ay keydsadaan oo kale boqolkiiba 20 oo kale meel ha dhigtaan wuxuu wada isticmaalin maadaama aad dhalinyaro tahay waxa laga fikiraa mustaqbalkaada ma laga fikiraa si horumar adiga familkaada iyo bulshadan aad ku gaarsiin lahayd laga fikiraa dooqaan waxba macno ma laha kaliya wixii noloshaada ku kamili karta hadii ay hesho waajib ma aha in maalin kasta aad samayso wuxuu ahaa dharka magaalada ugu cusub wixii magaalada ugu fiican inaad soo qaadato muhiim aha waan laga fiican yahay muxuu ahaa qof fikiraya ma aha waxaa lahaa dadka macnaha dowladaha hurdaayo kale ama dadka hurdaayo kale ayuu qofkaas u galay macnaha qof hurdaayo waaye imaatada bir imaanaysan aan war u hayn qofka macnaha wixii maanta soo gal wada isticmaalaya ama aayadda ma aan lahayn waa qof macnaha hurdaya mustaqbal dambe aan ka fikirayn kaliya maanta la taagan ka fikirayo